soo dhalinyarada ururka mutadawiciinta ee Hanzoor ay ka hirgelinayaan dhisme argo ama calaamada soo gelitaanka magaalada. Dhalinyaradan oo ku shaqeynaya nidaamka iska wax u qabso ayaa dhismaan ay hirgelin doonaan ka qayb qaadan doona kor u qaadida bilicda magaalada Ceergaabo. waxaana ugu horeynba warbixin telefishinka ka siiyay qaabka ay u soo agaasimeen hawshan qaar ka mid ah ururka Hanzoor, injineerka hirgelinaya dhismahani iyo dhalinyaro kale oo dhammaantoodba gacanta ku hayay dhismahani. argadan markii hore riyeehed laakiin maanta waxay noqotay waaqac dhaba. waxay tusaale cad u tahay oo maragmadoona oo markhaatiya in dhalinyaradu hadday isku duubnaato uliya diirka noqoto wax walba ay qabsan karto. in dhalinyaradu markay cududeeda muujiso isku tashato hadalka deyso ficilka raaciso wax allaale wixii niyadeeda ku soo dhacay qaban karto oo horumara. tan waa horumarkii gobolka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ururka annagoo markii hore fikradda keenay markii labaad ururka siinay maantana ururka Hanzoor oo maanta dhisaya argadii barnaamijkayga inta qura noqon maayo ka si balaaranaya. waxa ku xigaya iftiiminta magaalada argadii maanta feeskii kood waa kan feeska labaad ku xigay in la wada shubo maanta insha Allah marka kale ku sii xigana waxa weeye inaanu wixii dambe bilicda magaalada haday dir beeris noqoto haday iftiimin noqoto inaanu bilaabno. waxaan leenahay dhalinyarada aynu wada tashano wax badan baynu ka bedelanaa Ceergaabo. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada mutadawiciinta ah xoogooda sadaqadaysanaya magaaladooda iyo gobolkooda wax gelinaya. waxaan leeyahay bulshada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada ku habsaantay majlisyada qaadka majlisyada qabyaalada majlisyada muxuu ahaayay aan waxba soo kordhinayn lagu soo biira. maanta waad aragtaan bulsho waxay ku horumartaa oo ay ku tanaadaa oo tacab ay gashataa waxa weeye bulshada siday gobolkeeda iyo dhulkeeda u dhisto. waxaan leeyahay noqon mayso tii ugu horeysay haddaan nahay ururka dhalinyarada Hanzoor. waxaanu soo wadnaa barnaamijyo ka badan kuwan oo ay ka mid tahay bilicsiintii iftiimintii magaalada iyo barnaamijyo kala badan. waxaan halkan baa uga jeedinayaa madaxda gobolka oo markii horena si qiimo leh iyo qaayalo nogala qayb qaatay dardargelinta hawshan hadday tahay local governmentiga hadday tahay gobolka iyo hadday tahay ganacsatada gobolka Sanaagba. waxaan leeyahay wali fari kama qodna. waxa loo baahan yahay dhalinyarta kale ee iska joogta ee fadhida waxaan leenahay isu taga oo gacmaha is qabsada tan iyo wax ka badan baad hirgelin kartaan haddii ay isu tagaan gacmo